فنانكاسي ونجيب عبد الرحمن ودمكابة. نجيب عبد الرحمن ودمكابة وحاو كل شيء مقالة هرقيسة سنة فوق سجال وقود يقود سجال كي تضبي لبعتين كيدي بشيشنا وحاو دكسيجيسي هو سيد حبا وقوقعة إسلام مقالة هرقيسة عبده إيه مقالة هرقيسة وأكمل نقضي فنانين تيكو صوب بحضي ترتنكاسي halkaasi ayuuna ka hana qaaday fanka Nagiib Wadmakaabe sanadahaas wixii ka dambeeyayna waxa uu kaalin weyn u ku lahaa fanka Soomaalida isagoo waqti heesta waan ku daayay heesta nasiib heesta miyaad dhafartaa sidayda heesta dow iyo weliba heesta dhigaaga oo ay ku wada luuqayaan fanaanada Yurubgeeyo iyo weliba heesa kaloo tiro badan oo aanan soo koobi karin hase yeeshee farqiyad aan ka maqashiyo heesaha uu soo iska leeyahay ee Nagiib hore kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono kii ugu xiisaha badnaa ee laga ciyaaray horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League ayaa toddobaadkan waxa la ciyaaray kulamadii 13aad waxaana ciyaarihii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnaa ee dhacay kamid ah kooxda Manchester City oo ay fooda istareen kooxda West Ham ayaa Manchester City waxa ay ku xasuuqday 4-0 waxaana sidaas ay ku hogaaminaysaa horyaalka Premier League kooxda Manchester United ayaa sidoo kale u soo baxday wareegga 16 kooxood ee UEFA Champions League iyagoo oo groupka H kaga soo baxay markii ay guul ka gaadheen kooxaha Valencia iyo Young Boys halyeeyga xulka dalka Ivory Coast iyo kooxda Chelsea ee Didier Drogba ayaa ku dhawaaqay inuu ka fadhiistay gebi ahaanba ciyaaraha kubadda cagta Drogba ayaa markii ugu dambeysay ka ciyaarayay horyaalka kubadda cagta ee dalka Mareykanka dhammaan ciyaarihii Champions League ee la ciyaaray xalay iyo habeen hore waxaa ka mid ah PSG oo Liverpool kaga adkaatay 2-1 waxaana ciyaartaasi oo xiiso leh oo tababaraha kooxda kubadda cagta